وسلامتين dhageystayaasha idaacada dalsan iyo shaqaalaha marka indheeyay isbuucii la soo dhaafay kulankii taariikhiga ahaa ee ka dhacay Kampala madaxweyne Shariif Sheekh Ahmed iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waa laba nin oo qaraabo ah waa laba nin oo madaxweyne ka soo noqday waa laba nin oo mataqaanaa midna uu degan yahay Tanzania midna uu degan yahay Uganda marka waxa iga soo baxay inuu dhaqdhaqaaq siyaasadeed jiro oo aan ka shakisanahay imaaraadku inay wadaan inay soo dhaweeyaan maamul goboleedyada waxa la lahaa Umar Cabdirashiid doonaya imaaraadka waa qadiyada Qatar iyo marka kulli siyaasad baa jirta maadaama labadu aqbalid ku leeyihiin baarlamaanka ay taageeraan ku haystaan waa garta waxaan la soconaa khilaaf siyaasadeed inuu jiray xilligii doorashada campaign-ka waliba markii lagu jira uu aad khilaafku u sii xoogaystay heshiiskoodan hadda ma la dhihi karaa waa dana siyaasadeed oo kale oo gaar leh oo gaara oo moodo in qorshayaal kale laga leeyahay dadka siyaasiyiinta qaar sidaa bay aaminsan yihiin marka aad bahda saxaafada ahaan aad ila soo xiriirteen oo aad su'aashan aad ii keenteen oo bariyaha dhan saxaafada iyo shacabka Muqdisho ay ku wareersanaayeen waad la socotaa taariikhda madow ee u dhaxaysa Uganda iyo madaxweyne Farmaajo waxaan cabsi weyn ka qabaa inay dawladda shisheeya oo ay kamid yihiin Imaaraadka ay kamid yihiin Masar ay kamid tahay Uganda kulli dawladda shisheeya waxay wadaan in dhammaan mucaaradkii ama madaxweynayaashii hore ee tartanka la galay president Farmaajo in dhaqdhaqaaq siyaasadeed la sameeyo marka kulankaas Nairobi ka suurtagali maayo hadda maadaama dawladda Kenya ay diidan tahay in mucaaradka Farmaajo aanay Kenya ku shiri kareen waxaan u maleynayaa inay jiraan dawladaha Sacuudiga iyo Imaaraadka iyo Masar iyo Uganda iyo in dawladda Farmaajo si loo diidan yahay marka qaabka loo diidan yahay ma heshiiskan hadda Qatar dhexdhexaad dawladda ka noqotayba ma Farmaajo cabsi badan laga qaba oo ah ciidamada uu sameeyo marka kulli waxaan kulli dhaqdhaqaaq siyaasadeed baa jira oo mucaarad loogu sameeyo dawladda Farmaajo oo waa garto waxa tiri dhinaca maamul goboleedyada oo kale maamul goboleedyada iyo heshiiska labadan madaxweyne ee hore maxaa iska qosayn kara maamul goboleedyada hadda maamul goboleedyadu waxoo dhan waa isku hal qoys Shariif Xasan wuxuu good friend leeyahay labadoo good friend buu leeyahay ninka la yiraahdo Axmed Madoobe wuxuu good friend leeyahay Shariif Sheekh Ahmed maamulka Puntland waxa uu la soo shaqeeyay Shariif Sheekh Ahmed Abdul Gaas marka hadii qadiyadii dawladdu qaadatay ee ahayd in dawladda la raaco dawladaha ku midoobay colaadda Qatar ee Sacuudiga Imaaraadka Masar Bahrain marka waxaan u maleynayaa Imaaraadku inuu dhaqdhaqaaq siyaasadeed wado isagoo la kaashanaya dawladda Uganda iyo Ethiopia marka maamul goboleedyada waa laga yaabaa inay kulamo iyaguna u aadaan Uganda in lagu kulmo dhici karto oo mataqaanaa mucaarad Farmaajo halka lagu abaabo waa gartay laakiin mucaarad ahaan baad dhowr mar ku soo celisay mucaarad dawlad ay yeelato waxaan ognahay in xaalad kale oo aad u adag ay noqon karto laakiin laba madaxweyne hore heshiis wada gaaray iyo arrimahan ku aadan hadda aad sheegayso mucaaradnimo sidee isu waafaqi karaan siyaasadda waa la socotaa xildhibaanadii 90ka ku dhawaa Xasan Sheekh Maxamuud uu soo saaray baarlamaanka ku jiraan xildhibaano kala jira iyaguna Shariif Sheekh Ahmed taageersan ama ha noqdaan midabkii ururkii maxkamadaha ha noqdaan ama ha noqdaan qaraabaha ha noqdaan waxa jira kuwa kale Umar Cabdirashiid taageersan